howlgaladan ay sameeyeen saaki ciidamada ammaanka ee ka howlgala magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu hogaaminayay saraakiisha taliska aadaha ammaanka ee Hirshabelle waa isugu jira booliska nabad sugidda ciidamada Amisom ee nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada booliska sida gaarka u tababaran ee Haramcad. howlgaladan ay sameeyeen saaki ciidamada ammaanka ayaa waxay ku soo qabteen dhalinyaro loo ku shakisan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab. howlgaladan oo habeen iyo maalinba laga sameeyo magaalada Jowhar ayaa waxaa si wada jir ah u fuliya ciidamada booliska Hirshabelle kuwa nabad sugidda iyo ciidamada booliska sida gaarka u tababaran ee Haramcad. markuu soo idlaaday howlgaladan ayaa waxaa shir jiraayad xafiiskiisa ku qabtay taliyaha howlgelinta Hirshabelle Gaanshaale Dhexe Mukhtaar Cabdulla Nuur. ugu dambeysay shaqadan soo qabanay waxaan shaqeeynay isbuucyadii ka horeeyay idinka saakaad nala kowsateen waxaan shaqeeynay bishaan oo dhan roondaan wadnay waxaan ku soo qabanay rag fara badan oo dambiilayaal oo shabaaba iyo qalab oo shabaabka leeyahay sida ogtihiin banagama dhageeridin waa ogtihiin dadkii waa haynaa maxkamadan ku wareejin doonaa hadduu alla yiraaho. saakay waxaan ka howlgalnay degmadan gibi ahaan caasimadeeda waxaan uga howlgalnay nabad sugid booliska ciidamada Haramcad oo nagula soo kordhiyay dhammaan saraakiisha iyo ciidamada isla howlgalay. saaka waxaan soo qabanay nawar sameeyay idinka nala howlgalay waa mahadsantihiin idan leenahay shacabka sirtayna siinaan ku howlgalnay idin naba mahadsantiin ka idaacadahan mar walba inaan sidaan nolol shaqaysiin u baahanaa waan mahadsantiin billah. Yusli Maxamed Ahmed, Bulsha TV, Jowhar.